waxaan rabaa halkan caawayna ugu mahadceliyo ergadii dib uga soo laabatay maxkamadda cadaaladda ee caalamiga Hague ee guushan taariikhiga noo keentay ergadaas oo ka koobneed uu hogaaminayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi xeer ilaaliyaha Suleymaan xeer ilaaliyihii hore Axmed Cali Daahir ambassador Fiqi gudoomiyaha golaha shacabka ee Koonfur Galbeed injineer Saalixi wiilkiisa Yuusuf Garaad Muna Sharmaan iyo intaan cawada halkan nala joogin ugu horeeyo marxuumka walaalkay injineer Maxamed Saalixi Allah naxariisti janno siiyo waxaan rabaa sidoo kale inaan halkan uga mahadceliyo dhammaan dawladihii kala duwanaa oo aad sheegteen ee ugu horeysatay Cabdullaahi Yuusuf madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf ay ku xigtay dawladdii madaxweyne Sheekh Shariif wasiiradiisa ay ku xigtay dawladdii madaxweyne Xasan Sheekh iyo wasiiradiisa uguna dambeysay dawladdan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wasiiradiisa fursadna u helay inay guusha ugu dambeysay ay soo hoyaan runtii waa farxad aan la koobi karin waa wax noo sheegayo in aan leenahay xuduud cad oo caalami ah oo xuduud badeed ah sida uu sheegay xeeraliyihii hore xuduudan badda hore looma garanayn laakiin maanta way caddahay waana fiican inaan iimaanka aan gashanno inuu xuduudaas ay noo tahay xuduudii saxda ah hadda kadibna aan ku xisaabtanno waxa iyadana ku xigto in guushii maxkamadda waynu helnay maxaa ku xiga waxaa ku xiga fulinteedii oo u baahan dad sax ah oo ka shaqeeyo oo hore u sii wado waxa ay walaalaheen caawada ay soo hoyeen waxaa loo baahan yahay aniga ka ra'iisul wasaare ahaan aan ballan qaadayaa in ergadii ka qayb gashay soona hoyday guushaas taariikhiga ah aan garab ku siiyo inay la yimaadaan istiraatiijiyad hab lagu fulinayo qorshe lagu fulinayo balaan cad oo lagu fulinayo inta noo hartay oo ah xukunkaas maxkamadda in la fuliyo waxaana ku sii xigi doonto sidii looga faa'iideysan lahaa dhulkaas aynu soo ceshanay oo aan ognahay inuu khayraad ka buuxo baddaas oo khayraad dabiici ah uu ka buuxo siday saaxiibadeen ka dhawaajiyeen saaxiib waa la samaystaa laakiin daris lama samaysto dowladda Kenya aynu dariska nahay waa dad aan daris nahay waan isku qasbannahay inaan ka wada shaqeyno wada noolaansho daris iyo nabad inaan ku wada noolaano dhinaceennana shacabka Soomaaliyeed diyaar inuu yihiin ayaan cadeynayaa in wada noolaanshahaas iyo daris wanaaggaas aynu ka helno dalka aynu darisku nahay ee Kenya ilaahay mahadiis waa ku guuleysanay in labadii garab ee walaalaheen Somaliland ama gobolladii waqooyi ay heshiiyaan lana yimaadaan sifo transparent ah oo nadiif ah oo cad doorashadoodina sidii ku dhacday alxamdulillah cid kastoo ka qayb qaadatay ilaahay ayaa mahad leh haddana saan ku heshiinay insha Allah berri oo ay ka bilaabato sidaan ku heshiinay ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo tiimkiisa Somaliland ama gobolladii waqooyi doorashada iyo diyaar garowgooda bilaabanaysa wiiga soo xigana waxaan rajaynayaa hadduu Allah subhanahu wa ta'ala idmo in xildhibaanadii ama golaha shacabka ugu horeeyay ay Somaliland ama gobolladii waqooyi ay halkaan ay ka soo baxaan insha Allah sidoo uu sheegay hadalkiisa adkeenaya dawlad goboleedyada waa run waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay noogu soo gabagabowdo cidna ma doonayso aan aniga ugu horeeyo inaan halkaan sii joogno habeen kasto waxaan Allah ka baryaa inuu hawshan sida ugu dhaqsiyaha badan nooga soo gabagabeeyo annagoo nadiif ah shaatiga caad yahay cidna is dhagaxyeen cidna is dhaawicin cidna aysan isdilin aan halkaan ka tagno dawlad iyo nidaam cusub aan ku wareejino hawshan diyaar ayaan xaggayga u ahay insha Allah saaxiibadeen waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay hawshaas noogu soo gabagabowdo
waxaan rabaa cawada fursad kale oo raba inaan halkan uga faa'iidaysto waa October, November, December gobolada qaarkood xilligii abaaraha iyo jiilaalka ayaa bilowday saad la socotaan Jubbaland xaalad adag ayaa ka jirta oo abaar ah oo biyo la'aan ah hadday ku sii darsoonto oo aysan roob ama aysan helin gargaar degdeg ah January iyo February iyo March April ugu soo horeeyo marka abaar dheer ayaa qabsan doonta hadduusan ilaahay albaabaha nimcadiisa uusan noo furin waxaan rabaa inaan wasaaradahayga aan u sheegay inay u diyaar garoobaan sidii goboladaas iyo dowlad goboleedyadaas gacan loo siin lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan haddii aan leed wasaaradda gargaarka wasaaradda caafimaadka dhaxda loo xirto wixii subaxii ka bilowdana aynu u diyaar garoobno wasiir Beylana waa hor fadhiya wax sagxad la dhahay ma jirto mushaaraadka waa haysanaa ilaa April sanadka soo socda insha Allah mushaaraadkeena meel u yaala haddii aan lahayd mushaaraadka ciidamada haddii aan lahayd shaqaalaha rayidka intaasoo dhan waa haysanaa wixii zaid ayaan noo dhiman laakiin insha Allah waa inaan dhaxda u xiranaa oo aan saacidnaa walaalaheen ay abaaruhu saameeyeen sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan leeyahay hambalyo mar kale hambalyo waqti dambe la joogaa waxaan leeyahay aan duceyno intii dhimatay oo cawada nagala soo qaybgali weysay kulankan intii toos uga qayb gashay maxkamadda iyo inta sida dadban uga qayb gashaba dhammaantood waa dad Soomaaliyeed waa dad muslim ah oo fursad u waayay cawada inay nagala soo qayb galaan Allahna uu oofsaday shacabka Soomaaliyeed dalkooda way jecel yihiin sida uu ra'iisul wasaare ku-xigeenka hadda sheegay meel kasta oo ay joogaan dalkooda ayay ka naxaan u gurmadaan marka waa wada muwaadiniin annagana waxaan leenahay waa mahadsantiin shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogtiin waxaan leeyahay hambalyo waxaan sidoo kale halkan uga mahad celinayaa dhammaan intii gacan naga siisay xafladan oo ugu horeeyaan gobolada Kalamaan iyo gobolada Waaberi oo dhinacayga fadhiyo dhammaantiin waa mahadsantiin wasiiradana waa mahadsantiin ka soo qaybgalkiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh